musharax injineer Salabaan Diiriye Barre oo kamid ah musharaxiinta golaha wakiilada uga tartamaya xisbiga wadani gobolka Sanaag iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Garadag iyo qaar kamid ah deegaanada hoostaga degmada Garadag kuwaas oo ay kamid yihiin Wardheer, Cabdullaahi Shiisha. wafdiga ballaadhan oo hogaaminaya xildhibaanka ayaa lagaga hortagay duleedka degmada Garadag kumanaan kamid ah taageerayaasha musharaxa oo ku sugayay afaafka hore degmada Garadag ayaa musharaxa iyo wafdigiisa ku qaabilay dareen farxadeed isla markaana ruuxay calanka xisbiga wadani iyo istiigarro ku xardhan yahay musharaxo sidoo kalena astaanta musharaxa oo ahayd dallad isla markaana ku soo wareejiyay shaariciyada degmada Garadag isagoo musharaxa iyo wafdigiisu ugu dambeyn taageerayaasha ay kala hadleen mid kamid ah xafiisyada uu ku leeyahay degmada Garadag halkaas oo hadallo kooban ka soo jeediyeen mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee heer degmada Garadag waayeel iyo waxgarad cuqaal iyo xildhibaanada golaha deegaanka xisbiga wadani uga sharaxan degmada Garadag. soo dhaweynaya xildhibaankoodii ay muddo dheer sugayeen xildhibaan Salabaan Diiriye oo xildhibaankeenii hore baarlamaanka inagu metelayay oo aynu kala maarmi weynay mar labaad inaynu dib u soo sharaxno waxaanu maqli jiray ciyaartooy baa laga soo iibsadaa wadan gobol kale inuu ka soo iibsanay Salabaan Diiriye Barre waa xildhibaan aynu ka maarmi weynay waxaynu ka soo iibsanay oo sanadkii hore ka soo baxay doorashadii 2005 gobolka Sool maanta wuxuu inooga sharaxay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Garadag waa xildhibaan intii uu xilka hayay wax badan inoo qabtay waa xildhibaan aynu aad iyo aad ula socda xaaladda bulshada guushiiba gacantiina ku jirta fartiinaasay ku jirtaa maantana guushii way muuqataa waxaan leeyahay reer Garadag dhammaantii intiina maqan iyo intiina joogtaba midharkaarana way iska imanayaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa ummadii maanta iyo bulshadii iyo xisbiyadii iyo xildhibaanadii sharaxnaa way kala muuqdeen waxa maanta inoo muuqday xildhibaanka Soomaaliland gobolka baarlamaanka inoo matali doona degmada Garadag oo ah xildhibaan Salabaan Diiriye Barre maanta hadduu seexdo waanu la daba gelin waa xildhibaan baarlamaanka hadda baarlamaanka oo sidirana hadda ayaanu sidirana anagu bulshadu inay isbedel doonayso maantay muuqata dee waxaan leenahay wixii hore quba waxa weeyaan mar haddaynu helay Salabaan waxa weeyaan dee aynu dooranno aynu soo saaro si wax inoogu taro soo saaro aad iyo aad baad mahadsantihiin boqolkiiba boqol weeye waynu aragnaa si wanaagsan baad noo soo dhaweyseen waxaan qabaatay magaalada cidinma maqna guushuna way muuqataa waxaan idinku rajaynayaa inay 31 Mayna aad sidaa wax u bedeli doontaan sida maanta Garadag isu bedeshay 31 Mayna inaad u bedeli doontaan haddii Ilaahay ka dhigo taasaan idinka rajaynaynaa insha Allah ta'ala waa maalinta codka nasiisan oo xildhibaanada isbedelka ee wadani aad codka siin doontaan haddii Ilaahay wadada ogolaado waxaan mar labaad idinka codsanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan maalinta codka siisan xildhibaanada wadani oo aan ugu horeeyo golaha wakiilada iyo golaha deegaankaba astaanteedu waa dallad insha Allah ta'ala waa dallada waan wada harsan doontaan waxaan ballan idinku qaaday haddii Ilaahay igu guuleeyo anigu waxaan uga baxay oo mucaarad iigu shaabadeeyay inaan daayarta iyo haweenka degmadan iyo gobolkan u doodo golaha dhexdiisa taasaan kaga baxay golaha oo waa mucaarad ninkaasi oo nifog tii baan u taaganay waana qaatay waxaan ballan idinku qaadayaa anigu dabcan xukuumadda Muuse kama tirsani aniga cidda halka ay dirtay golaha wakiilada ay dirtay waa idinka waa daayarta iyo haweenka halka tuban ee abaaraha iyo dhaxamaha iyo kuleelka intuba ay haystaan ee wax daryeel wali helin ee badankoodu aanay waxbarasho lahayn ee badankoodu aanay caafimaad lahayn ee badankoodu aanay daryeel kale oo bini'aadanimo haysanin waxaan ku ballan qaadayaa inaan ka shaqeyn doono haddii Ilaahay uu dalay uu ogolaado inaan ka shaqeeyo idinka doonistiina inaan ku shaqeeyo idinka dantii